Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan maanta idinla wadaagi doonaa sida loo ogaado isbuucii ama maalintii inta jeer aad isticmaashid facebookkaaga. Maalintii meeqaa saac imisa saacadood ayaad facebookkaaga isticmaashaa. Si aad u ogaatid waxaad galaysaa facebook. Okay, waxaad tagaysaa halkaas settingka geeska. Okay, waxaad sii tagaysaa waxa la yiraahdo setting and privacy. Okay, waxaan ku soo bixi doona marka your time on facebook, your time. Okay, ku dhufo halkan waxaa ku soo baxayo 7 maalin ee ugu dambeysay facebook aad ku qaadatay. Okay, marka maxaad leedahay halkan jimcaha oo kale friday ku dhufo click see. waxaa ku soo baxaysa inta saacadood iyo inta minute aad isticmaashay 24 hours and 27 minutes. Okay, 1 hour 58 minutes, 1 hour 10 minutes, 2 hours and 40 minutes, 1 hour 5 minutes iyo 2 hours and 47 minutes iyo maanta oo ah 57 minutes. Okay, halkaas ayaad marka ka ogaan doontaa dhammaan waxyaabaha yarmaan. tan kale halkan waxaad ka xiri kartaa waqtiga. waxaad ku xiraysaa inta saacadood ee aad rabto facebook inaad isticmaashid. haddii waqtigaas uu dhammaado aad maanta kale waxaad ugu talagashay inaad isticmaashid 2 saacadood facebook, waxaad ku xiraysaa 2 saacadood. marka 2 saacadood markii la gaaro facebookkaaga hadda meesha 57 daqiiqo ii marayso, markii la gaaro 2 saacadood ama 1 saac markii la gaaro wixii aan aniga ku buuxsado, markii la gaaro wuu ii soo qaylinayaa facebookga. wuxuu leeyahay waqti aad facebook ugu talagashay inaad isticmaashid waa la gaaray, jooji. marka option ayaad u leedahay inaad si isticmaashid iyo inaad iska ogaatid. marka waqtiga managementiga ayay ugu talagashay kambaniga facebook inay ku xadido dadka. marka optionka adiga iska leh, wax ka badan 15 daqiiqo 12 daqiiqo intaad rabtid waqtiga geysa adigoo falaarta ku jiidayo. Okay, marka that is marka hadda markuu 0 hours iyo 0 minute ku saaran yahay free aad tahay, inta rabto ayaad isticmaali kartaa. laakiin haddii marba aad waqti ku xirtid oo set timer aad dahdid, hadhow kale markaad 1 saac isticmaashid facebookkaaga waa ku soo qaylinaya sida saacadii oo kale, wuxuuna kuu sheegayaa inaad gaartay xilligii aad joojin lahayd facebook. waxaa loo yaqaanaa daily time reminder. maalintii kale waxaa ugu talagashay inaad isticmaashid 2 saacadood. haddii 2 saacadood ka badan aad ku sii jirtid ama 2 saacadood aad isticmaashid, wuu ku soo qoynaya ku leeyahay maanta facebook waxaad isticmaashay 2 saac. marka option ayaad haystaa ah inaad xilligaagii ama waqtigaagii 24 hours ka mid ah 2 hours ka mid ah 24 hours aad facebook ku isticmaashay. marka option ayaad haystaa inaad istaajisid. marka laakiin haddii aad wax timer usan kugu xirnayn, waxaa dhici karto inaad isticmaashid wax ka badan 6 hours ama 5 hours, taasoo ah in waqtigaaga aad ku dishid baraha bulshada gaar ahaan facebook. marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. aad ayaadna u mahadsantiin daawashadiina. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ka faa'iidaysi wacan.